hogaamiyayaasha sarsare ee Xuutiyiinta Yemen ayaa galay goobo qarsoodi ah waxa ayna yareeyeen isgaarsiintooda. Tallaabadan ayaa lagu sheegay inay isugu diyaarinayaan inay taageeraan Iran oo ay weerar ku qaadaan Israa'iil, sida uu maanta wariyay wargeyska Wall Street Journal. Telefishinka Al Jazeera ayaa waxyar ka hor ku warramay inay Iran shaacisay inaysan jirin wax wada hadal ah oo ay qayb ka tahay oo socda, iyadoo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Iran uu warbixintan ay ka soo xigatay uu sheegay in go'aanka dagaalka nabadda iyo wada hadalka waxa iskala ayuu hogaamiyaha sare ee Iran Mujtama Khamenei, mana jirto wax ogolaansho ah oo la bixiyay oo ku saabsan wada hadal, ayuu sii raaciyay hadalkii. Wuxuu intaas ku daray hadallada la sheegayo inuu gudoomiyaha baarlamaanka uu wada hadal wado waa been, ayuu yiri, waxaana loo faafinayaa si khilaaf loo abuuro. Sidoo kalena waxa uu yiri maranbiyoodka Hormuz lama furi doono, wax wada hadal ahna ma gelin mani gali doono, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. War la yaab leh oo soo baxaya, Mareykanka ayaa dalka Poland ka codsaday nidaamyada difaaca ee Patriot ee u yaala inay geeyaan bariga dhexe si ay gacan uga geystaan ka hortagga weerarada Iran, balse Poland waa ay diiday. Wasiirka difaaca ee Poland oo maanta arrintan ka hadlay waxa uu yiri nidaamyada Patriot ee aan haysano waxaa loo adeegsan doonaa difaaca hawada ee Poland iyo bari ee NATO, mana jirto ilaa marka qorshe kale oo aan ku wareejinayno meel kale. Xogayaha dagaalka Mareykanka ayaa yiri waxa aan diyaarinay xoogeena military, maalmaha soo socda waxay noqon doontaa kuwa go'aamiyo dagaalka Iran. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa sheegtay in hadalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ah in dalkiisa uu codsaday xabad joojin ay tahay been aan lahayn sal iyo raad toona. TV-ga qaranka Iran ayaa soo xigtay hadalkaas sida uu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Ismail Baqai, waxa ayna timid kadib markii Trump uu mar horeba sheegay boggiisa baraha bulshada in madaxweynaha maamulka cusub ee Iran uusan magacaabin uu codsaday xabad joojin uuna u tixgelin doono. Baro luqadda Ingiriiska maanta adigoo kalsooni sare isku qabo. Hadda waxaa la joogaa xilli Ingiriisku uu noqday luqadda ugu muhiimsan ee lagu shaqaysto, waxna lagu barto, laguna safro adduunka oo dhan. Haddii aad ku riyoonayso mustaqbal ifiya oo furan, barashada luqadda Ingiriiska waa furaha kuu horseedaya guul iyo fursado aan xadidnayn. Macadka barashada luqadaha ee Blue Screen Online wuxuu ku hayaa koorsooyin luqadda Ingiriiska oo ka kooban sida bilow, dhexdhexaad iyo dhammaystir. Koorsooyinkan waxaa si xirfadaysan kugu baraya macallimiin xirfad leh, iyadoo xoog lagu saarayo ku hadalka luqadda Ingiriiska si kalsooni leh, qorista iyo akhriska si habboon oo sax ah, maqalka iyo fahamka luqadda si qoto dheer, xirfadaha nolosha iyo shaqada ku salaysan. Haddaba haddii aad danaynayso barasho barwaaqo ku horseedo, ka bara Blue Screen Online oo guji calaamadda WhatsApp ee hoose.